golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay qaraar dib u eegis ku sameynaya saamiyada ay helaan gobolka Awdal sidoo kalena kordhinaya degmo doorashooyinka gobolkaasi. Qaraarkani oo soo saaray golaha wakiilada ayaa waxa akhriyay xogayaha golahaasi Cabdirasaaq Siciid Ayaanle. akhriyayna go'aankii gudoomiyuhu sheegay baynu akhriyaynaa. go'aankii baynu akhriyaynaa. golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland 30 Sebtembar 2023 markuu arkay qodobka 9aad ee dastuurka Soomaaliland oo tilmaamaya nidaamka siyaasadeed ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa saldhig u ah nabadda, tala wadaagga, dimuqraadiyadda iyo hannaanka xisbiyada badan. markuu arkay qodobka 126aad ee dastuurka oo tilmaamaya hannaanka wax ka beddelka iyo kaabida dastuurka iyo qodobka 127 oo asteeyay xuduudda wax ka beddelka iyo kaabista dastuurka isagoo ka duulaya qodobka 8 firqadiisa koowaad 9 iyo 53 firqadiisa afraad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamaya awoodda golaha iyo xilka iyo waajibaadka ka saaran sharci dejinta iyo u gudbinta xukuumadda talooyin iyo soo jeedin ku saabsan siyaasadda guud ee hogaamineed isagoo oo maanka ku haya ararta dastuurka ee ah in shacabka Soomaaliland uu higsanayo dawladnimo ummad wada deeqda oo la mahadiyo kuna dhisan sinaan iyo cadaalad isla markaana maanka ku haya tabashada garowshiyaha leh ee gobolka Awdal isagoo tixgelin siinaya soo jeedintii qoraalka ahayd ee mudanayaasha golaha wakiilada ee lagu soo doorto gobolka Awdal ay u soo gudbiyeen golaha iyo kulanadii ay la yeesheen shirgudoonka golaha wakiilada. goluhu wuxuu soo saaray maanta oo taariikhdu tahay 3 Sebtembar 2023 in golaha wakiiladu isagoo oo gudanaya himilooyinkiisa baarlamaan ee dastuuriga ah ee ku xusan qodobka 8 firqadiisa afraad xarafkiisa ja isla markaana xaqiijinaya taabagelinta cadaaladda guud ee bulshada xasiloonida guud ee jamhuuriyadda iyo isu kalsoonaanta iyo iskaashiga shacabka Soomaaliland xoojinayana wax wada lahaanshaha bulsho uu bilaabo una diyaar garoobo dib u eegis dastuur isagoo loo raacayo hannaanka ku cad qodobka 126aad ee dastuurka qaranka. 2 iyadoo oo laga duulayo xaqa uu qodobka 22aad firqadiisa 2 ee dastuurka ugu dambaanad qaaday muwaadiniinta xaqa codbixinta guddiga doorashooyinka qaranku waa inay dib u eegis ku sameeyaan tirada goobaha codbixineed ee gobolka Awdal oo loo kordhiyaa si la mid ah sidii gobolada kale loo kordhiyay. 3 iyadoo laga duulayo wax wada lahaanshaha iyo midnimada shacabka Soomaaliland madaxweynaha hadda xilka haya waa madaxweyne Muuse waa inuu dib u eegaa saamiga kuraasta ee xukuumadda iyo garsoorka ee gobolka Awdal. 4 in xukuumaddu si cadaalad ah u qaybiso mashaariicda miisaaniyadda ku jira iyo mashaariicda horumarineed ee dawladda Soomaaliland ku caawiso iyadoo tixgelin gaar ah siinaysa gobolka Awdal gaar ahaan kaabayaasha dhaqaalaha Allah mahad leh. waa farta qodob weyn intaasi kadib waxa iyaguna cod gacantaag oo aqlabiyada ku ansixiyay golaha wakiilada waxaana u codeeyay qaraarkaasi 74 xildhibaan.